إنما الدين النصيحة شأنها في الشرع. hadafkaasi dadka muslimka qofku markuu muslim noqdo waa yool ama gool uu raadcaynayo laakiin noloshu ahdaaf yaryaro ka sokaysay leedahay waxaa la rabaa ahdaafta yaryara soke inay u khidmayso hadafka weyn yacni wax kasta oo hadafkaa weyn kaa weecinaya waa inuu noqdaa waxaan macno badan agtaada ka samaynaynin maalan inaad xoogsato oo shaqaysatid oo hanti yeelatid waa mubaax waa wax bannaan noloshana waa lagaa rabaa laakiin hadday hadafka ku weydaarinayaan ka warran ilaahay kuwuu qur-aanka ku ammaanay wuxuu leeyahay maxay rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaahi wa iqaami الصalaati wa iitaa'i الzakaa koox baa ilaahay ammaanay kooxdaa la ammaanay waxa lagu tilmaamay ragannimo rijaal weeyaan baa la yidhi waa rijaal maxay ku sifooba laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah baaca mushtarka iyo lacagta kasbashadeedu kama weeciso ma ilowsiiso hadafkii weynaa oo ah inuu salaad oogo inuu zako la yimaado inuu ilaahay caabudo inuu xuso in aakhiro hortiisa ay taallo yakhaafuuna rabbahum inay rabbigood ka cabsanayaan maalin quluubta ay gagadoomayso idan hadafka weyni waxaan soko oo dhammi dabaab kuma ridaan ceeryaan maaha kaa qarin karta mushkiladda dadka haysata ugu badani waxa weeyaan ilaahay wuxuu ina leeyahay haddaad salaadda dhammaysaan maxaa layna yidhi faintashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illaah salaaddu aad markaad dhammaysataan dhulka ku faafo ilaahay arsaaqdiisa raadsadaa la yidhi wawadkuruu llaha kaiira lacallakum tuflixuun laakiin dhulkufaafka iyo tijaarada iyo waxaanay hadday hadafka weyn qaldayaan iyagaa laga hortegaya wa rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah waxa badan markaa maanta ahdaafta waaweyn intay dadku ilaabaan wax yaryaroo sakayna ku mashquulaan waxaa laga yaabaa inta saacadood aad ku bixiso iskuulka yaad saaqidi oo ka warran yowmu alqiyaama haddaad saaqiddo maalinta aan saaqidnimo ka weyni jirin waxaa laga yaabaa inuu leeyahay yaad ceeboobin oo ka warran qiyaamaha marka reer nebi aadam oo dhan laysu keeno haddaad ceebowdo yowma tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya reer nebi aadam ilaa ka u dambeeya goobay taagan yihiin haddaad ceebowdo waxaa laga yaabaa inaad isleedahay noloshu way kugu adagtee fududee oo ka warran maalinta 50,000 oo sannadooda noloshaynu joognoo dhammi waa imisa 60 sano 70 sano 80 sano ka warran maalin 50,000 oo sannadooda haddaad cadaabanto intaan janniya naarba laysla gaadhin kaana 50,000 sana maalinah qiyaamuhu waa maalin 50,000 oo sannadooda 50,000 oo sannadood baad taagnaanaysa 50,000 oo sannadood baa dadkan la xisaabaya 50,000 oo sannadood baa cadceeddu halkan taagan tahay 50,000 oo sannadood baad waxaad hadhsanaysaa waxaad xoogsatay ee hadafkaasi aad u xoogsatay 50,000 oo sannadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay 50,000 oo sannadood baa ragga qaar hadhsanayaan oo carshu raxmaanka hadhsanayaan ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay ilaahay cibaadadiisa madaxdii cadaaladda samaysay kuwii habeenkii istaagay ee ishooda ay ooyaysay kuwii gacantooda midig waxay bixinaysa gacantooda bidixaanay ogayn kuwii shahwaatu nafsiga ka soomay ee naagaa quruxda badan leh inta u yeedheen ku yidhaahdeen ilaahay baan ka cabsanayaa ama inantii inanka quruxda badan leh uu yeedhee tidhi waar ilaahay baan ka baqayaa ayay dhaaf kuwaasi waxaa la yidhi iyagu carshu raxmaan bay hadhsanayaan cadaabkanaad ku jirta iyo waxa kana arki maayaan ka warran haddaad sileeday nolosha waxaad u baahantahay way kugu adkaatay biyo lacabo iyo sharaab iyo waxoogaa dabdabacsani inaad u samayso ka warran 50,000 oo sannadood haddii haraadka u kaa siiyo iyo ninka xawdka nebi maxamed ka cabbayaan haraadayninba yacni hadafka weyne hadduu lumo noloshan soka qiimo ma leh shayaaiinu alinsi waljinina waxay isugu tageen inay hadafkaa weyn qariyaan
oo ay kugu mashquuliyaan ahdaaf yaryaroo soke waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yaryaroo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiyo heblaaya kolayga ku riday kubad oo hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya ninbaa kubad 2 birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto idan ahdaaftii rasmiga ahayd dowladan waxa la idinku qabanayaa baan rajaynayaa in ahdaafta la saxo inaynu dib u xisaabtanno oo dib nolosha u hagaajinno inaynu buusalada hagaajisanno garanno barul amaan xagee lagu gaadhaa doon baynu saaranay noloshu waa doon badweyn ku dhex jirta hadday buusaladaadu sax tahay markabka badweynka soconaya haddii buusaladu kambasku hadduu u saxan yahay mahma ay waxaanay dhacaan wuu gaadhi meel barriyo nabada uu dego wuu gaadhi haddiise kambasku kaa lumo mawjaduhunbaa kolba dhanku u kaxayn badweyntuunbaad ku wareegi doontaa adoo aan weligaana dhul arkaynin waxaa la mid ah qofka noloshan garan waaya wuxuu jooga ka qabanayo haddaad cab oo cayaar oo boodbood oo wax dhal oo xoogso oo daaradhis oo kan samee dan hargeysaa joogtaan bal suuqa hargeysa isdhex taaga raggii dhisay meeye waa daartii xaaji hebel iyo watii ilmo hebeluma maqlaysaan meeye xaajiyadii ka tageen aarahan hargeysada aan maanta dhex joogtaan raggii lahaa cidi kaba noola xaggay joogaan waa kuwaynu meelahan ku marro xataa magac male hadda xabaalaha ka bannaybana asxaabulqubuurkii xaajiyanimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo hebel wixii lumiye waa asxaabilqubuur waa dadkaa godadkaa ku jira ciiddaynu ag marayno ma waxaad diyaar u tahay inaad danda intaad dhisto ku biirtid kuwa magaclaawe halkaa ku jira aan la kala garanaynin xufraddan ay ku jiraan dabcan qaar bay janno u tahy qaarna naar bay u tahy laakiin inaga agteenna waa asxaabulqubuurun waxay isweydiinta leh markaa war maxaynuu noollahay dhallinyaray xaggaa ku socotaa noloshaadu xaggay ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waa tegaysaaye waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weydiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kaleba garan weydaad waxaad leedahay fas'al ilcaadiin kuwii tirin jiray bal ha la weydiiyo adigu inay maalin tahay iyo inay maalin badhkeed taad kala saari kari laaday ee bal cid labadaa kuu kala rajaxda ha la weydiiye baa taagan tahay oo nolosha ma maalin badhkeed baad dooratay marka ayuha alikhwa hadafka aynu raadacaynayno adigaa lagaaga baahan yahay hadafkaa wixii lagu gaadhi lahaa cilmiya ragannimo ah xoogsiya dadaala adigaa lagaa rabaa inaad la timaado adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel soke adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdo adoo rabbigaa caabudaya adigoo ariiqa saxa ah haya waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo ariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro kuwii islaamnimada ku dhintayna laynaga yeelo subxaanahu wa tacaala